Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa dil nooc kala ah oo weligaa hore u maqal. Dil qofka la dilay iyo qofkii dilay ay isla ogaayeen oo qofkii la dilay uu raalli kaga ahaa qofkii dilay weliba uu lacag ku siiyey inuu dilo. Waxaan ka hadli doonaa qiso la yaab leh oo noocaasa oo ka dhacda waddanka Guatemala. Laakiin intaan aan u gelin muuqaalka maanta haddii ay tahay markii ugu horreysay oo soo booqato kanaalka hilmaamin subscribe, like waa muhiim siina share garee lana wadaag asxaabtaada aan u galno muuqaalkeena maanta. 2009 wadooyinka waddanka Guatemala waxaa buuxay dad banaanbaxayaal ah waxayna dalbanayeen in la dilo oo weliba la daldalo madaxweynihii waddanka ee xilliga Alvaro Colom iyagoo ku eedeynayay inuu dilay nin muwaadin oo lagu magacaabo Rodrigo Rosenberg. Sheekada dhan waxay ka soo bilaabanay markii waddanka Guatemala uu u soo haajiray nin lagu magacaabo Khalil Musa oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Lubnaan. Khalil Musa wuxuu ka sameeyay waddankaas maalgashi wuxuuna ka mid noqday dadka ugu dhaqaalaha badan. Sidoo kalena wuxuu ahaa nin wanaagsan oo laga jecel yahay waddankaas. Maalin maalmaha ka mid ah Khalil Musa wuxuu doonayay inuu qayb ka noqdo weliba uu maamulka ka mid noqdo bangi lagu magacaabo Banrural. Laakiin intii uusan ka mid noqon maamulka maalin maalmaha ka mid ah waxaa isi soo raacay Khalil Musa iyo gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Margori. Intii ay jidka soo socdeen waxaa ku soo baxay laba nin oo mooto saaran halkii ayna xabad kula fureen halkii ayna ku geeriyoodeen Khalil Musa iyo gabadhiisa. Dadka oo dhan waa ay ka naxeen maadaama uu nin wanaagsan ahaa laakiin waxaa jira qof si aad ah kaga naxay. Waxaa lagu magacaabaa qofkaas sida aadka uga naxay Rodrigo Rosenberg. Sababta koowaadna waxay ahayd Rodrigo wuxuu ahaa looyarka qoyska sidoo kalena waxaa xiriir kala dhexeeyay Margori wuxuuna doonayay maalinkaas inuu guur u soo bandhigto. Markii ay geeriyoodeen kadib Rodrigo wuxuu aad kaga murugooday waxa gabadha loo dilay. Odaga asaga in la dili doono waa uu filayay horena waa uu kala hadlay. Markii uu go'aansaday Khalil Musa inuu ka mid noqdo maamulka bangigaas lagu magacaabo Banrural wuxuu Rodrigo Rosenberg oo ahaa looyarka qoyska kala hadlay Khalil Musa inuu iska dhaafo. Sababtuna waxay ahayd bangigaas lagu magacaabo Banrural wuxuu ahaa bangi sumcadiisu aysan wanaagsanayn wuxuuna ahaa bangi lacagaha sharci darrada ah lagu cadeeyo ama lagu dhaqo sida tiraahdaba. Waxaana wax ka ogaa arrinka oo qayb ka ahaa madaxweynaha waddanka Guatemala waxaana mas'uul kaga ahaa dhanka madaxweynaha bangiga nin xogayo u ahaa oo lagu magacaabo Gustavo Alejos. Geerida qoyskaas kadib Rodrigo wuxuu galay xaalad murugo iyo stress ah ilaa ugu dambeyntii meydkiisa ay ka heleen boolisku jidka dhinaciisa maalin maalmaha ka mid ah isagoo la dilay. Intii uu socday aaska Rodrigo Rosenberg waxaa imaaday goobta nin ay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabo Luis Mendizábal wuxuuna u dhiibay cajal muuqaal ku duuban yahay qoyskii Rosenberg wuxuuna ku yiri waxaa ku jirta sirta geerida Rodrigo. Cajalkii markay shideen waxa uga soo baxay muuqaalkan. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom. Muuqaalkan wuxuu kula hadlayay Rodrigo shacabka Guatemala wuxuuna u sheegay in madaxweynaha iyo qoyskiisu ay ka dambeeyaan dilka Khalil Musa sidoo kalena inuu isagu u dadaalayay ama isku dayay sidii uu arrinka banaanka u soo dhigi lahaa fasaadkooda iyo dilka ay u geysteen qoyska reer Musana inuu isku dayay inuu banaanka soo dhigo. Haddii ay muuqaalkan arkaanna in macnaheedu ay tahay inuu isagu geeriyooday ayna dileen madaxweynaha iyo xogayihiisu. Qoyskii Rodrigo muuqaalka waxay soo dhigeen YouTube. Markii muuqaalkaas uu gaaray shacabka Guatemala waxay u soo baxeen wadooyinka waxayna ku mudaharaadeen dowladda iyo madaxweynaha waxayna dalbanayeen in la daldalo madaxweynaha waddankaas maadaama ay ku eedeynayeen dilka nin muwaadin ahaa. Madaxweynuhu markasta uu fursad helo ama meel kasta uu ka hadlo wuxuu sheegay inuusan isagu dil geysan sidoo kalena lagu eedeeyay dil aan wax caddayn loo hayn. Markii uu arrinku muddo socday waxaa loo xil saaray dambi baarayaal heer caalami ah oo wadamo kala duwan ka imaaday waxaana hogaaminayay kooxda dambi baarayaasha dambi baare asal ahaan Isbaanish oo lagu magacaabo Carlos Cartrizana. Carlos wuxuu isugu yeeray saxaafadii waddanka iyo kuwa caalamiga ahaa si uu ugu soo bandhigo wixii ka soo baxay baaritaankii ay sameeyeen. Markii ay baaritaan ku sameeyeen kaamirooyinkii ku dhaganaa waddada waxay heleen muuqaalka Rodrigo subaxii la dilay waxayna arkeen inuu daba joogo baabuur madow wuxuu ahaa baabuurka noociisu Mazda waxayna ahaayeen noocaas baabuur noocooda uu ku yar yahay waddanka sidaa darteed kuma aysan adkaan dambi baarayaasha inay baabuurkii soo helaan. Baabuurkii waxay ka heleen isagoo taagan iridka hore guri uu leeyahay nin lagu magacaabo William Difac
baas. William wuxuu horey u ahaa jiray askari boolis ah, laakiin markaas wuxuu ahaa dilaal Kristo. Markii ay baaritaan ku sameeyeen, booliska wuxuu u sheegay in maalinkaas uusan kaligiis ahayn. Waxaa la socday nin kale oo dilaal Kristo ah oo lagu magacaabo Mario Baas. Booliska waxay soo qabteen kii kale ee lagu magacaabay Mario. Labadooduna waxay u sheegeen booliska si wada jir ah in uu qof soo wacay. Markii ay baaritaan ku sameeyeen dambi baarayaashu nambarkii laga soo wacay, waxa uu soo baxay arrin la yaab leh. Nambarka laga soo wacay waxaa lahaa Rodrigo Rosenberg. Wuxuu u sheegay markii hore inuu doonayo inay dilaan qof uu neceb yahay. Muddo kadib ayuu mar kale soo wacay, wuxuuna u sheegay halka ay ka heli doonaan qofka ay dili doonaan iyo sida uu u egyahay. Wuxuu u sheegay inuu wada doono baaskiil iyo dhar sports. Markii ay baaritaan ku sameeyeen dambi baarayaashu halkii laga soo wacay maalinka, waxa uu soo baxday in qolka Rodrigo laga soo wacay. Labadan nin waxaa soo wacay nin ka codsaday inay qof dilaan, mana aysan ogeyn in qofka soo wacay uu yahay qofka ay dili doonaan. Subaxii dilka la fulin lahaa markii la gaaray, Rodrigo wuxuu soo gashtay dharkiisii sportska, wuxuuna soo qaatay baaskiil, wuxuuna soo aaday ballankii uu la lahaa geerida, ama wuxuu soo aaday goobtii ay ku dili lahaayeen. Markii uu goobta soo aaday, iyaguna goobta ayay soo aadeen, goobta ayayna ku kulmeen, sidii ayayna ku dileen. Dambi baarayaashuna waxay ka soo qaadeen dilkan inuu yahay dil raalli la isaga ahaa. Wuxuu doonayay Rodrigo Rosenberg inuu ka argoosto madaxweynaha iyo xogayihiisa, maadaama ay dileen gabadhii uu jeclaa iyo aabaheed. Maadaama uusan cadeymo toos ah ku hayn madaxweynaha iyo xogayihiisa, wuxuu doonayay inuu qaabkan kaga argoosto oo uu dadka ku kiciyo si siyaasad ahaan uu u dhaawaco. Muuqaalkii maanta intaasuu ku egyahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah.